السلام عليكم walaalyaal isku soo noqod wacan wanaagsan waa anigoo walaashin hani oo ina leh marka la ku soo dhawo qiso aad iyo aad u cajiib badan qisadeena sidatan ayay u dhaxaysaa waxaa jirtay gabar yar oo waalidiinteeda lamay soo korin in muddo ah waxaa soo korsatay ayeedeed ugu dambeyntii ayeeyda markay dhimatay ayaa waxa dib loogu soo celiyay gabadhii waalidiinteeda markay cid imaatay waxay afahmi la adahay hooyadeed oo gabadha waxay isjeclaysiinaysaa dhanka aabaheed waxay waqti wada qaataan ayada iyo aabaheed maalin maalmaha kamid ah waxay hooyadii dhahday maanta suuqa ayaan aadaynaa dhammaantoodna way soo baxeen markay gaariga soo koreen ayaa hooyadii waxay ku dhahday gabadhayda quruxda badneeday maanta waxaan kuu soo iibinayaa dhar aad iyo aad u qurux badan balse gabadhii ayaa waxay ku qaylisay maya aniga dhar ma rabo wax yar ka bacdi guriga ayay dib ugu soo laabteen markii casiradii la gaaray ayaa gabadhii waxay soo aruursatay alaabtii yareed ee ilmaha ku ciyaarayeen iyadoo meesha ku ciyaarayso ayaa hooyadeed u timid markaas ayay ku dhahday gabadhaydii miyaan kugu soo darsami karaa si aan kuula ciyaaro balse gabadhii ayaa ku qaylisay haddana maya hooyadii ayay meesha uga carartay waqtiga habeenka markii la gaaray ayagoo TV daawanayaan ayaa gabadhii iska ooysay yareed markaas ayay hooyada waxay siisay tiish si ay ilinta iskaaga tirtirto salaada waagi markuu bariyay hooyadii iyo aabihii suuqa ayay u kallaheen si ay ugu soo iibiyaan gabadhooda qudaar midda ugu wanaagsan ee ilmaha lagu xanaaneeyo markay dib ugu soo laabteen ayaa hooyadii waxay u karinaysaa cunto aad iyo aad u macaan gabadheeda iyadoo waliba ka fiirsanaysa telefoonka si ay ugu samayso gabadheeda cunno aad iyo aad u macaan daqiiqado ka bacdi cuntadii markay kartay ayuu aabihii jikada ugu soo galay xaaskiisa si uu u dhadhamiyo cuntada asagana intii gabadha loo keenin ka hore xaaskii aad iyo aad ayay u faraxday markuu ninkeeda jikada ugu soo galay cuntadii intay ka qaboojisay ayay afka u gelisay gabadhii meesha kama fogeen oo aad iyo aad ayay u fiirsanaysaa aabaha iyo hooyada waxay sameynayaan waxayna ku faraxday marka ayagoo isku faraxsan ay aragtay wax yar ka bacdi hooyada cuntada ayay miiska ku soo diyaarisay farxad ayayna ku wada cuneen gabadhan maalintaa wax uga farxad badnaa dunida weligeed muu soo marin hooyadan kaliya waxay doonaysaa gabadheeda oo faraxsan inay aragto hal marna ma doonayso inay aragto iyadoo walwalsan iyadoo oyna hayso maanta waxay u sameynaysaa cunto aad iyo aad u macaan si ay gabadheeda ugu faraxdo haddana iyadoo ka baqayso gabadha inay cuntada cajiib gelin wayso aabaha iyo iyada waatana miiska ayay fadhiyaan waxayna sugahayaan cuntadii daqiiqado ka bacdi hooyadii markay cuntada keentay ayaa waxay dhaheen adiga ayaa cuntada noo dhadhaminaya maanta
gabadhii markii ay darsato afka ay gashatay ayay hadal ka soo bixin waysay hooyadii aad iyo aad ayay iskugu naxday markaas ayay dhahday cuntada ma macaanamiya iyadoo meesha ka qaadi rabto ayaa gabadheeda gacanta qabatay markaas ayay ku dhahday hooyo cuntadan aad iyo aad ayay u macaan tahay waana mahadsan tahay qisadeena quruxda badneed oo dhaxmartay gabadha iyo waalidiinteeda halkaas ayay noogu dhan tahay balse cashirkaan meesha ka fahmi karno ayuu wuxuu yahay dadka oo idil markii la weydiiyo dadkay ugu jeceshahay waxay dhahaan qofka dabeecadda wanaagsan si kastoo dabeecadaada ay u xun tahay si kastoo habdhaqankaagu u yahay waxaa jiraan laba qof aan kugu nacaynin labadaasi oo ah waalidiintaada haddaba daawadaha daawanayo waxaan kuugu dardaarmi lahaa waalidiintaada inaad ka farxiso sida adigoo yar ay kaaga soo farxin jireen waxaana qisadeena la socodsiinaysay anigoo walaashiin hani ah fadlan muuqaalka la garee oo na dareensi inaad ka heshay haddii nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya oo daawado qisooyinka markasta aan soo gelino siina share garee muuqaalka si ay dad badan ugu cimri qaataan ku mahadsan tahay sida quruxda badan aa muuqaalka u dhameystirtay inta muuqaalkiisa xiga ku kulmi doono waxaan iga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh